ولكنني قررت أن أمضي بها وقل اعملوا تجنى الأماني بالعمل. الحمد لله على نعمائه والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واجتهدوا في العبادة وسلوا الله تعالى التوفيق والقبول. walaalayaal, waxaynu ku soo dhex jirnay dhowrka bilood u dambeeyay arkaanul islaamka xaqiijintiisa: salaadii, soomkii, sakadii, xajkii. bilahan aynu soo dhaafnay bay ku urursanaayeen, ama sakadana lagula dadaalaa. waxaa kaleynu ogsoonahay cibaadooyinka qofka muslimka uu gudanayo waqtigiisoo dhan baa ilaahay uu ku camalay. cibaado saacad walba taagan sida dikriga iyo tasbiixda iyo istikfaarta iyo qur-aanka kariimka, cibaadooyinka mudlaqa ah oo dhana sii daysan aan waqti lahayn. cibaadooyinka qaarkoodna maalinkii iyo habeenkii baa lala imanayaa, sidaas salaada aynugu celcelinayno o kale. cibaadooyinka qaarkood waa usbuucii mar, sida jumcadan aynu u fadhino. qaarkood cibaadooyinka waa sanadkii ayaa mar lala yimaadaa, sida sikadii iyo soomkii iyo muslimiinta oo xajkii isugu imanaya. cibaadooyinka qaarkood marka shaksiga loo eego cumrigii waa hal mar, sida xajka oo kale. marka qodobkaynu maanta baraarujinaynaa waxa weeye, cibaadadu inuu ilaahay ku waafajiyo waa nicmo. nicmo labaad baa ku lifaaqanoo ay tahay in hankeenuna gaadho, ilaahayna aynu barino, ta horena ay ku hirgelayso, oo ah cibaadada loo yaqaano alqabuul aw qabuulu daaca, in camalkii laga aqbalay. marka mowduuceenna maanta kaasuu la xidhiidhaa cibaadooyinka marka aynu gudanno waa inaynu ilaahay barinaa inuu inaga aqbalo. cibaadadii in laga aqbalay intay culimmadu soo ururiyeen calaamaday leedahay, nusuusta iyo daliilada laga soo ururiyey. calaamadaha haddaad isku aragtay ilaahay ku mahadna, haddaad iska weydana isku dar duca iyo dadaal labadaba. asbaabulqabuulna waa la ydhaha, calaamaatulqabuulna waa la ydhaha. camalkii aada ku dadaashay in laga aqbalo, oo camalku wuxuu noqdaa saxiix iyo maqbuul. farqi baa udhaxeeya. isagoo saxiixu hayru maqbuul noqon karaa. macnaha saxiixu waa inaad nidaamkii iyo sidii sharcigu yidhi waafajiso, laakiin isagoo aada nidaamkii waafajisay, shareecadu ay cibaadadan u dhigtay, ayuu hayru maqbuul noqon karaa. waayo aqbalku waa wax ilaahay agtiisa yaalla subxaana wa tacaala. ilaahayna waa tilmaamo, wuxu uhi innamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin wa kullu camalin saxiixin laysa maqbuula. sidaa daraaddeed baa camal wal oo saxiix oo sharciga la waafajiyeyba aanu maqbuul noqonayn. marka aqbalku waa arrin ilaahay ku xidhan, ay tahayna in ilaahay la bariyo. sababaha waxaa kow ka ah, qofku marka uu cibaado u baxo ee uu ku dadaalo inuu ka ilaaliyo dembiga iyo macsiyada ka dambeeya. oo arrintaasi waxay calaamad u tahay, hadduu marna xaggan u ridayo marna xaggan, inaan camalkiisa iyo cibaadadiisa la aqbalin bay calaamad u tahay. waayo rabbi waxa uu tilmaamay subxaanah, marka cibaadadu ay tahay cibaado wanaagsan oo tayo leh, inay qofka u diido shayga dembiga ah. siduu ilaahay ba yidhi, ina asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar. salaadu qofka dembiga iyo foolxumada u diidaa. salaada qura maaha, cibaadooyinka o dhan waa la mid. xishood baa ayaa qofka galaya, iyo isagoo ka khajila dembiga iyo macsiyada. waxaa sababta labaad ay tahay inuu qofku ka warwarsan yahay camalkiisii la aqbalay. waa calaamad labaad oo sheegaysa qofkani in cibaadada laga aqbalay bay sheegaysa. war haddii aanu kalsooni iyo isqancin isa siinin ee uu ka warwarsan yahu leeyahy cibaadada kolkii hore samaynteedu ku warwarayo,
haddana aqbalkeedu ilaahay baryaya ka warwarsan yihi oo wuxuu ogyahay wax badan oo la sameeyo inuu alla ku soo celin karo addoommo badan. cabdillaahi bni cumar allaha ka raali noqdo in taabiciyo ardaygiisa haabaa la socday way xajayeen iyagoo socodkii ku jira iyo masiiradii iyo safarkii dheeraa ayaa ninkii la socday wuxuu arkay dad aada u badan oo xajka u soconaya. markaasaa wuxuu uhi maa akthara alyawma alxujaaj, xujaajtu sanadkan aada bay u badan yihin. ibnu cumar wuxuu uhi maa aqallahu, tiradoodu way yar tahay buui. markaa hadalkiisii unbuu ka dheegtee wuxuu isaguna u jeedaa inta ilaahay ka aqbalay baa iyo ruuxa aada arkaysa ee faraha badan ee cibaadaysanaya. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa su-aal weydiisay xaaskiisii caaisha allaha ka raali noqday. aayad suuratu lmu'miniin ku sugan, aayadda suuratu lixda, aayadda lixdanaada suuratu almu'minuun qad aflax, ayay tafsiirka aayaddaa weydiinaysaa caaisha rasuulka sala allahu calayhi wasalam. asxaabtuna waxay nasiib ku lahaayeen qur-aanka fasiraadiisa iyo fahamkiisa nebigay ka raajici jireen calayhi salaatu wasalaam, oo ay ka ag dhowaayeen oo shaygii ka qancinaya wahmi iyo madmadow ka galo. waaladiina yu'tuuna maa aatow wa quluubuhum wajilah, aayaddaasi macnaheedu waa maxay bet? aayadda waxay leedahay mu'miniintu waxa weeye kuwa wixii ay sameeyeen samaynaya iyaga oo qalbigooduna uu cabsanayo. wixii uu qofkani sameeyey ayuu samaynayaa isagoo ka warwarsan. marka ma waxa weeyaan bay tihi qofkii sinaysanayey ee uu xadayey ee dabeedna dembigaa uu galay iyo xumaantaa uu sameeyey, qofkii khamriga intuu cabay uu xadayay, dembigaa uu galay ma qofkii ka cabsanaya ee ka warwarsanaada? marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam mafhuumkaa qalloocsamay iyo sidaa qaladkee u fahamtay wuu saxay wuxu uhi maya, mae waxa weeye qofkii tukanayay ee soomayay ee sadaqada bixinayay ee haddana cibaadadaa uu sameeyey ka warwarsanaa in laga aqbalayo in kale. aayaddu qofkaasay sheegaysa waa qof khayrkii u taaganba oo waajibaadkii waaweynaa, laakiin aan isku qancinaynin adigu wax qof wanaagsan baa tahay oo darajaad gaadhay oo camalkaagii waa la aqbalay, saa maaha aragtidiisu. waxa wey talow kan ma laga aqbalay, talow dadaashaye talow aqbalkiisii muxuu noqday? waa dadka sidaa uga cabsanaya ee uga warwarsan camalkii ay sameeyeen. saasuu ku saxay nebigu calayhi salaatu wasalaam. dadkaa weeye dadku ilahay yihi ulaaika yusaaricuuna fi lkhayraat wahum laha saabiquun. calaamada saddexaad waxa weeye altawfiiqu ilaa acmaali saalixati bacdaha. qofkii waa inuu kordhiyaa oo uu ka reeyaa oo uu ka badiyaa cibaadada intii hore uu samaynayay. waa calaamad sheegaysa aqbalka. kol hadduu intuu cibaadadii gutay sunnaheedii iyo faralkeediiba ku dadaalayay mar walba inuu sii kordhiyo, taasina waxay calaamad u tahay in laga aqbalay. allah inaga aqbala camalka iyo cibaadooyinka aynu samaynayna kala duwan. وهذه هي الاستقامة التي ذكرت في النصوص. قرآن wuxuu ka warrama xadiidka rasuulka salى الlahu عalيه wasalam inagu dhiiriyey shay loo yaqaano alistiqaama. qofku inuu tubta toosan ku egaado oo aanu ka baydhin. fastaqim kamaa umirta, sidii lagu faray adiga iyo ciddii ku raacdayba nebi maxameda ku toosnow baa le jidka xaqa ah. marka istiqaamaduna waa taa weeye, qofku intuu daacada iyo cibaadada sameeyo inuu biiriyo oo uu kordhiyo oo uu kor u socdo. calaamada afraad waxa weeye istisqaaru lcamali wa cadamu alcujbi waalguruuri bih. qofku inuu camalkiisu la yaraado oo uu idhaahdo kani talow ilaahay agtiisa muxuu ka goyn, oo aanu la yaabin oo aanu weynaysanin. oo markaad adigu tukatee aada soontee aada sadaqo bixiso dadka meelahan jooga waa inaanad camalkaagaa ugu faanin oo aanad odhan kuwani maxay sheegaya wax alla waxay ma jiro, kuwan ilaahay naar buu geynaya adigu waad iska jannaysanta masaajkaabaad ka soo baxay. war inagu khayrun baabaynu wadnaaye dadka in badan oo ka mid a ayaad caynkaa noqoto caynkaa noqotay. amaya camalkaaga waa inu kula yaraado, waa inu kula weynaanin. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa soo diray, wuxuu u taagnaada habeen iyo maalin diin iyo dadaal buu ahaa. haddana ilaahay uu la hadlo waxau ihi yaa ayuha nabiyu qum yaa ayuha lmudairu qum faandir rabbaka fakabir wahiyaabaka fadahir wاrujza fahjur walaa tamnun tastakfir.
waxaad bixinaysa ha badsan ila waa cibaada une shaygaad bixinaysa ama cilmiya ama talaa ama awooda ama adduuna ama dacwada ha badsanin oo odhanin kari wax weyn baa sameeyey marnaba ha odhanine shaygu ha kula yaraado waayo addoonku markuu ilaahay yaqaano subxaana wa tacaala rububiyadiisa rabbiyadiisa awoodda uu leeyahay sifooyinkiisa cilmigiisa abaalmarintiisa waxaasoo dhan addoonku markuu og yahay wuxuu og yahay jinigiisi waxay camal sameeyeen haddii isaga lagu soo ururiyo inaanu ilaahay agtiisa miisaan lahayn buu ogyahay sidaa daraaddeed buu yaraysanayaa qofku waa calaamadiyana calaamada shanaad waxa wey xubu daacati wa kurhu lmacsiya inuu qofkii jeclaado cibaadada iyo daacada macnaha khayrka la sameynaya ilaahay uuna faray xaqa ilaahay uu nagu leeyahay aynu gudanayno qofku waa inuu jeclaado dembiga iyo macsiyadana naco kurhu lmacsiya wa xubu daaca waxay taasi sheegaysaa inuu camalkii iyo cibaadadii macaansaday bay sheegaysaa oo shayga markaad nuxurkiisa u dhaadhacda ee uu tayo kula yeesho waad macaansataay oo kama hadhin qofka ganacsadaha hadduu faa'iide helo wuxuu aada ugu xisaabtamaa intuu dhadhamiyo macaankeeda inuu yaro kordhiyo yaro biiriyo yaro kordhiyo oo bil waliya sanad walba idhaahdo maxaa ku kordhay lanna wuu macaansada wuu dhadhamiyey marka tanna waa saas oo kale qalbigii baana ku degay oo uu ku raasukhay oo uu biyo dhigay khayrkii safbar kuma ah aladiina aamanuu watadmainu quluubuhum alaa bidikri illaahi tadmainu lquluub calaamada lixaad waxa weeye alrajaa wa kasratu ducaa inuu qofku rajadii ilaahay badiyo camalkii waad yaraysanaysaa haa laakiin haddana waxaad leedahay ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu iga aqbalo igana abaaliyo jannana igu bedelo cadaada iga nabadgeliyo adigoo cabsidii hore usii samaynaya cabsidii way jirta aad ilaahay ka cabsanaysa iyo cadaabkiisa rajadiina waad ku daraysaa raxmaddiisa aad rajaynaysa labadaa dhexdooda waxaa ka soo baxay inaad ducada badiso oo qofkii aada u ducaysto sidaasuu qur-aanku ina barayaa nebi ibraahim calayhi salaam iyo nebi ismaaciil goobtii ugu qaalisanayd oo kacbadaa bay dhisayaan camal la qabto kuwii ugu fadli badnaa weeye haddana waxay ku ducaysanayaan inuu ilaahay ka aqbalo waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyti waismaaciil rabbanaa taqabal mina inaka anta asamiicu alcaliim iyagoo dadaalkan keligood wada gurigaa keligood dhisaya ayay leeyiin ilaahu naga aqbal calaamada toddobaad waxa weeye ataysiiru lidaacati walibcaadu can ilmacsiya qofkii inuu arko alle xaggiisa in looga fududeeyeyba oy u sahlanaatayba wixii wanaagsani wixii xumina ku adag yahay oo qofku markuu xumaado waxa xunbaa u fudud waxa wanaagsanina wuxuu kaga dhigan yahay buur buu kaga dhigan yahay saa daraaddeed haddii la idhaha isqaawiyo maanta baddan dabaalo maanta oo dhan buu dabaalanaya laakiin haddii la idhaahdo jinaabada ka maydha ama salaada u weysayso way ku adagtay afartaadan xubnood maydhoo 2 ragcadood tuko way ku adagtay laakiin jiimkaa inuu ama halkaa lagu jimicsado inuu saacada ku jiru dhidido wuu kari karaa isagoo qaawan inuu dabaasha kalena wuu kari karaa macnaheedu waxa weeyaan wixii xumaaba ayaa dhan u samaynaya wixii wanaagsanana way ku adagyihiin sidaa cagsigeed weeye qofku markuu aqbalkii ijaabadii camalka hela alla wuu u furaa wuu u fududeeyaa alla wuxuu uhi fa amaa man acطa wattaqa wasadaqa bilxusna fasanuyasiruhu lilyusra وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى قفنا وحي ونكسنابا الله فضينيا قفنا وحي حمابا الله فضينيا اليسرى والعسرى وخصلته أرنت ونكسني أرنت حب قفك مركو خير كي وهي لنا هذا خير بخير ديني وحو فضاده وحي ونكسنا مركي كلنا وحي ونكسنابا كو أتكاد وعلامة دينا marka haddaad aragto masjidka iyo dikriga iyo cilmiga dhagaysigiisa iyo wacdiga iyo qur-aanka akhrintiisa iyo salaatuleylka iyo alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar sadaqada wax waliba inay kuu sahlan yihin oo culays iyo diiqad iyo xidhxidhnaadaana dareemayn waa calaamad aqbal haddii kale isdaweyn oo inaad dhakhtarka diinta isjiifisa ayaad u baahantay calaamada sideedaad waxaa weeye xubu saalixiina waa buqdu ahli lmacaasi inuu qofku hadduu wixii wanaagsanaa jeclaaday dadka wanaagsanna waa inuu jecel yahay dadka xunna waa inuu nacaa waayo sharbu waxaa kaga soo kabacaya xumaan iyo balaayo dadka xun
markaa mar walba wuxuu xiisaynayaa dadkii wanaagsanaa iyo cidda khayr leh iyo cidduu ilaahay ka raaliyay buu xiisaynaya. nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo taa inagu dhiirinaya waxau yihi xadiidkii bara bnu caazib warinayay ee axmed ku sugnaa: ina awhaqa cuna aliimaan an tuxiba fi llaah wa tubqida fi llaah. xarkaha la qabsado ee la cuskado ee la irkado iimaanka waxa ugu adag inaad ilaahay daraaddii wax u jeclaato, ilaahay daraaddiina wax u nacdo. dadku waxay wax u jeclaadaan danahooda iyo danta xisbigooda iyo dowladooda iyo reerkooda iyo maxaan ka helayaa iyo maxaan ka faa'iidayaa. taase hadda wax loo jeclaada waxna lagu nacaa. nafta way ku adag tahay diin iyo alla daraaddii iyo akhlaaq wanaagsan iyo qiyam fiican inaad wax u jeclaataa, nafta way ku adagtahay. marka taa ogolaysiiso meel baad gaadhay. man axaba lilah وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواية kale waxay sheegaysaa qofka u nacee u jeclaada ilaahay daraadii ee wax u bixiye ee waxna u hakiya ilaahay daraadii iimaankii uu buuxsaday. calaamada sagaalaad waxa weeye kathratu الاستغفار, inuu qofku mar kastoo daacada uu sameeyo istikfaartana badiyo. taasoo sheegaysa iyada laftigeedu inuu waa warwar kala oo uu leeyahay kolley sidii uu ilaahay mudnaa umaad caabudine ama xaqa ugu lahaaye bal camalkaa horeed samaystay wixii gaf kaa dhacay. ila kullu ibnu aadama khata, waxa la ina bani aadam oo dhami gaf la wey oo uu gafaa. bal markaa wixii kaa dhacay istikfaar ka dalba buu leeyahay. saasaanu diintu ina baraysa qur-aan iyo xadiid. arkaanta islaamkee waaweyn arkaan islaamka marka la dhameeyo ilaahay wuxuu ina baray inaynu istikfaar ka dabageynin. adigoo rukni gutay iyo waajib arkaan islaamkiiba ka mid ah ayaa haddana lagu leeyahy ka dabagee oo ku lifaaqoo raaci inaad ilaahay weydiisato wixii qalad iyo gafaynu kaa dhacay. xajkiiba ayaynu imanaynaa. ilaahay wuxuu uhi uma afiiduu min xayثu afaada الnaas wاstagfiru اllah ina allaha gafuuru raxiim. idinkoo carafa iyo goobihii waaweynaa ka soo noqday haddana ilaahay dembi dhaaf weydiista buu le istikfaarta badiya. adoo sidaa uba hawshaysan ayaa haddana lagu leeya ilaahay leeya istikfaarta badi. wa bilasxaari hum yastakfiruun, salaatuleylkii baad istikfaarkii ku lifaaqaysa adoo ilaahay la faqayaba. faclam annahu laa ilaaha ila allahu wastakfir lidanbika walilmu'miniina fastakfir lidanbika walilmu'miniina walmu'minaat. waa arrin nebiga loo dardaarmay calayhi salaatu wasalaam. salaadii baynu ognahay marka aynu ka baxno ereyga u horeeyaynu ku dhawaaqaynaa astaqfiru llah astaqfiru llah astaqfiru llah 3 jeer lagu celiyay. khayr baabaad ka soo baxday, laakiin waxa weeye kolley waxbaa isweydaartee oo adigana mar alla markaaad salaada gashaabuu isku daya shaydaanku inuu ku xawilo oo maqano jooga uu kaa dhigo oo meel kale aada la qabsato. markaa qalqallooca iyo simbirraxdaa kaa dhacday iyo silanaantu shaydaanku ku beeray ayaad istikfaar ilaahay ka weydiisanaysa. ugu dambeyntii nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu farayda xayaatadiisa inuu istikfaar kusoo gebagabeeyo iyo dadaalku ugu jiray daacada ilaahay iyo diinta horumarinteeda. haddana marka ajashaadu soo dhowaato istikfaarta badidaale waa macnahay sharxaysa suuradda idaa jaa nasru llahi wاlfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaba. ilaahay toobadda aad buu aqbalaaye. ilaahay waxaad weydiisataa dembiga inuu kaa dhaafo nebi maxamedow. rukuucda iyo sujuudda markuu ku jiraabuu odhanayay subxaanaka allaahuma rabbanaa wabixamdik allaahuma kfir lii. ilaahow dembi dhaaf. calaamada tobnaad ee ugu muhiimsan ee calaamadaha aqbalka camalka waxa weeye almudaawamatu cala alacmaali الصaalix. xataa haddaanad kordhinin inaad intii aada waday joogtayso oo aanad ku safaadin oo aanad fudaydasanin oo aan adduunyadu kaa kaxayn oo ubad iyo ehel iyo adduun iyo asxaab midna aanu kaa kaxaynin arrinuu ilaahay kaa sugayo. almudaawamatu cala alacmaali الصaalix. ilan intanaad u noosha waa raasamaalki tiibuu ku mitidayaa qofku uu ku dhegayaa oo cidi ka fujin mayso. sidaasuu ahaa rasuulkeenii aynu ku daynaynay sala allahu calayhi wasalam. caaisha waxay leedahay xadiidkii saxiix ahaa kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam idaa camila camalan ahbata. mar hadduu nebi maxamed camal sameey xataa sunnaba ha ahaado wuu joogtaynaya. dadkana wuxuu farayay wax ay joogtayn karaan inay sameeyaan camalada. axabu alacmaali ila llahi
axabu alcamali ila allahi adwamuhu wain qal camal oo dhan ilaahay wuxuu u jecel yahay kuu qofku joogteeyo haba yaraado. taasi waxay markaa natiijo ahaan kuu dhalaysa haddaad joogtayso ilaahay wuxuu kugu abaalgudayaa, lagugu bushaaraynaya. haddii uu kugu yimaado wax kaa mashquuliya camalkii aada joogtaynaysa oo cudurdaar kuu noqda, waa laguu qorayaa adoo sameeyoo kale. cudur baa kugu yimid, safar baa kugu yimid, hurdaa kugu timid, marka camalkii aada joogtaynaysay baabaad ka mashquusho, aada ka dhacday adigoo kari waayey ma fursadu waayey, ilaahay wuu kuu qorayaa adoo sameeyey oo kale. nabigu calayhi salaatu wasalaam saasuu inoogu bushaareeyey xadiidkii bukhaari ku sugnaa: idaa marida alcabd aw saafara kutiba lahu midlu maa kaana yacmalu muqiiman saxiixa. qofku markuu camal cibaadaad joogtayn jiru samayn jiru ka bukooda ama ka safro, intii leegu buu ilaahay u qoraya. uu samayn jiray isagoo reerkiisa jooga, uu samayn jiray isagoo caafimaad qaba. hurdadiina waa la mid, sida tilmaamaya xadiid kale saxiixa nisaa-i ku sugan: maa min imri'in takunu lahu salaatu billayl fagalabahu calayha nawmu ilaa kataba allahu lahu ajra salaatihi wa kaana nawmuhu calayhi sadaqa. hadduu qofku salaad habeenkii tukan jiray, dikri samayn jiruu khayr waday, joogto aad u ahay, islahaana aada samaysid markaad soo toosto kadibna uu ka seexdo, intii in leeg buu ilaahay u qoraa uu samayn jiray. hadday 10 ragcadood ahayd iyo hadday 30 ahayd iyo hadduu intaasoo jus akhriya, ilaahay wuu qoraa. malaa'igtaa markaa way qabaanoo ilaahay wuu siiyey. welibana hurdada laftigeedaa sadaqa u noqonaysa. niyad wanaagsan buu ku seexday. waxaasoo khayra laynoogu bushaaraynayaa. marka waa waxaynu ku shaybaadhayno 10kan arrimood. camalkan aynu samaynayno ee aynu qabtahayno, aynu dadaalayno, aynu u ordayno, calaamadaha ma laga helay? haa, wax badan baad haysataa, ilaahay ugu mahadna. haddii kalena ku dadaal, ducadana badi. allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca, wa arina albaaila baila warzuqna ijtinaaba. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة. لكنني قررت أن أمضي بها وقل اعملوا تجنى الأماني بالعمل